haddii hadda lagu yiraahdo 3 minute baad haysataa 3 waxna waa lagu qabanaya codso waxaad rabto maxaad rabtaa inaad qabsato maxaad rabtaa mustaqbalka inaad gaadho maxaad rabtaa in lagu qabto maxaad niyad ku haysataa oran lahayd waxa xasan raba in la qabto chance-kaasna halkaas uu mar guriga soo maraya maxaad ku jawaabi lahayd bal fikir maxaad ku jawaabi lahayd haddii fursadaas oo kale ku soo mari lahayd go'aankaagu muxuu noqon lahaa maxaad go'aansan lahayd markaas waqtigaas lagu weydiiyay erayga go'aan ama go'aan qaadasho haddayna eegno isagaaba isqayaxaya go'aan wax ayaad ka go'aysaa waxna waad u go'aysaa mid kale dhamaantiin waxaan ognahay go'aan markaad qaadanayso aad u soo jeedin go'aan qaadanayso laga yaabo xaaladii ku kala jirnaa inay kala duwan tahay xaalad adigoo xanaaqsan xaalad adigoo faraxsan xaalad adigoo iska caadiya xaalad adigoo xanuunsanaya inaad go'aan marun qaadato inkastoo la yiraahdo haddaad adigoo xanaaqsan go'aan qaadato xagga xunun baad ka yeeyaysaa haddaad adigoo faraxsan go'aan qaadatana dhinaca fiican oo kaliyaad ka yeeyaysaa markaas bal ereyga go'aan adiga maxaa go'aankaagu yahay mid kale dad badan oo inaga mida waxa ka qarsoon xataa haddaad go'aan gaadhin inaad go'aan qaadatay waayo waxaad ka cabsatay inaad go'aan waxaad ka gaadho marka go'aankaagu wuxuu noqday cabsashada inaad waxa ka cabsatay inaad go'aan ka gaadho marka qaar waxaan qaadanaa go'aan inaan ku dhaganaano waxyaabihii tagi aan waxba ka bedeli karin adigoon ogeyn bad go'aan ku qaadatay inaad ku dhaganaato xasuustaada iyo qalbigaaga raaciso waxyaabihii tagi adigoo qaadan kara go'aan ka fiican oo ah inaad waqtigaad hadda haysato ka faa'iideysato mustaqbalka soo socda waxaad qabsan lahayd inaad sii dayso oo iska fasaxdo waxyaabihii aad ku dhagan tahay hore ee tagay inaad iska fasaxdo oo sii dayso xasuusaha xumaad haysato ee niyada kugu jira ee cabsida kugu abuuray markaad gacmahaaga free ka dhigto ayagoo maran maskaxdaadana u furto soo dhawaysa mustaqbalka cusub markaas ayaad go'aan ka gaadhay noloshaada oo go'aansatay inaad hore u socoto waxa muhiim ah qof kasta inuu isweydiiyo ma ku faraxsantahay waxaad qabanayso ma ku faraxsantahay noloshaada ma ku faraxsantahay waxaad haysato hadday jawaab tahay maya haddaad waqti haysataa ka faa'iideyso qaadano go'aan ah inaad noloshaada bedesho qabsatana waxyaabo fiican adiga kaliya ayaa xidigaha iskeyn kara adiga kaliya ayaa istusi kara waxa tahay adiga kaliya ayaa naftaada qiimeyn kara adiga kaliya ayaa cadeyn kara waxaad rabto inaad qabsato iyo waxaad qaban karto qaado go'aan maxaad rabtaa inaad qabato haddaad go'aan qaadan waxaad iska xidhay albaabkii ahaanshaha naftaada dadka intooda badan noloshooda inta ka dhima hal shaqo ku dhameystaan sababtoo ah hal mar bay shaqada heleen maalintii go'aanka qaadanayn laga yaabo inay dan ku kaliftay ama ay ka cabsadeen inay shaqo kala waayaan markii dambana waxay ka cabsadeen haddii ay shaqadan sii daayeen inay shaqo kala waayaan laakiin su'aasha meesha taala ah ma ku faraxsantahay shaqadaada ma ku faraxsantahay maalinlahaaga ma ku faraxsantahay subaxdii markaad ka cayso shaqadaada u baxayso inaad shaqadaada teegayso ma tahay riyadaada isweydii su'aasha hadday jawaab tahay maya dhaqdhaqaaq geed ma tiid meesha kama bixin ilaahay wuxuu ku siiyey gacmo sida wax ugu qabsato ilaahay wuxuu ku siiyey maskax sida ugu fikirto ilaahay wuxuu ku siiyey lugo sida ugu socoto ma tiid geed ilaahay wuxuu kaa wada duway dhammaan waxa kala adduunka ku abuuran wuxuu kaa dhigay qof ilaahay wuxuu kaa dhigay bini aadan sharaf leh sharaftaada hoos ha u dhigin qaado go'aan oo u shaqee noloshaada waxaad rabto u shaqee riyadaada qaadano go'aan saxa ubadku markuu yar yahay waalidkii wuxuu ku dhahaa markaan weynaado waxaasan qabanaya markaan weynaado meeshaasan aadaya markaan weynaado waxaasan noqonaya laakiin markuu weynaaday wuu iska ilaaway amba uu ka cabsaday inuu qabto qaado go'aan una dagaalan farxadaada xataa haddaad go'aan qaadan saasaad go'aan ku qaadatay waxaad go'aan ku qaadatay inaad taagnaato halkaas shalay taagnay waxaad go'aan ku qaadatay inay sida geedkaad meel ka baxdo 4 xilli ee waqtiguna kuugu soo galo ninbaa wuxuu rabay inuu meel u safro laba hab ku safri karay mid waxay ahayd inuu doon qaato badana dul maro habna wuxuu ahaa inuu lugeeyo buuraha dul maro kadib wuxuu go'aan ku gaaray inuu lugeeyo buuraha kadib wuxuu maray buurihii waxaanu sii socday 10 cisho roob baa ku da'ay dabaylaha ku kacay intii uu sii socday dhandib la sii kulmay kadib meel buu fadhiistay markaasuu dhahay go'aan qaldan baan qaatay
haddaan maanta doontii raaci lahaa mar horaan halkii tegi lahaa waxaasoo dhan iguma dhaceen laakiin yaa ogin go'aan qaldan qaatay laga yaabo xataa badda hadduu dul mari lahaa inay dabaylahaas ku kici lahaayeen doontana la rogmin lahayd uu naftiisana ku waayi lahaa haddaad ka cabsanaysaa waxa mustaqbalka soo socda ood leedahay haddana waxaa sameeyo ama waxaas igu dhacaan weligaa go'aan sax qaadan maysid haddaad kale ka cabsanayso markaad waxaa samayso inaad ka qomamayso kaasna go'aan sax qaadan maysid u bareer waxaad qaadanayso go'aan saxana markaasaad qaadan rabtaa maxaad rabtaa inaad maskaxdaada ka bedesho maxaad rabtaa inaad naftaada ka bedesho maxaad rabtaa inaad adigu iska bedesho maxaad rabtaa inaad faamilkaaga ka bedesho maxaad rabtaa inaad wadankaaga u qabato maxaad rabtaa inaad dadkaaga u qabato maxaad rabtaa inaad naftaada u qabato maxaad rabtaa inaad gaadho riyo ma leedahay isweydii su'aalahaas barnaamijka maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaa magacaygu waa Muuna Ismaaciil Maxamed wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh